garoonka kubadda cagta ee xarunta degmada Warta Nabadda ayaa lagu soo xiray tartan kubadda cagta oo maamulka degmada Warta Nabadda u qabtay 22 iskuul oo kamid ah dugsiyada sare ee ka howlgala degmadaasi. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa ka qayb galay xiritaanka tartankani oo maamulka degmada Warta Nabadda ku dhiirigelinayay isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed. boqolaal kamida qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobjoog ka ahaa madasha ay ka socotay xiritaanka tartankani iyadoo labada kooxood ee tartankan lagu soo xiray ay goobta ku soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badneed oo ku dhisneed weerar iyo weerar celis oo ay sameynayeen ciyaartooyda labada kooxood. inkastoo ay guusha raacday kooxda ku ciyaaraysay magaca dugsiga sare ee Niileen oo kamid ah dugsiyada ka howlgala degmada Warta Nabadda. gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Seena Maxamuud Warsame Xabsi ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixisay tartankani iyo muhiimadda loo qabtay. waxaa sharaf weyn inoo ah annagoo ku hadlaya maamulka degmada iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee hay'adaha amniga shacabka maamulka qeybiisa inaan idinkugu mahadceliyo mar kale iyo mar saddexaad sidii tartankaas inta quruxda badan uu socday aad uga wada qayb qaadateen aadna uga shaqeyseen xasiloonidiisa iyo qaabkii uu u socday dhan walbaba aad u hoggaansanteen nidaamaadkii hore u wada degsanay ee idinku qaybta aad ka aheedeen maamuladiina. waxaan u mahadcelinayaa maamuladii iskuulaadka aad ka wada imaadeen 22 iskuul. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu waxa uu dhankiisa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay dhiirigelinta dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale in dhalinyarada Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool loo abuuro fursado wax ku ool ah si ay uga qayb qaataan horumarada kala duwan ee ka socda magaalada Muqdisho. halkan maanta oo finalka ahaydna labada kooxba waxaan uga mahadcelinaynaa ciyaarta quruxda badan ee aan wada daawanay iyo dhammaan cid alaale cid ka soo qayb gashayna waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin. dhalinyarada iyo haweenku mar walba waa dadka u taagan horumarka caasimadda. Warta Nabaddana waa hormuudkii degmooyinka. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaa hubaala tartankan ma suurta gasheen haddii aydan dhammaantiin qof walba oo idinkeedii ka mid ah kaalintiisa uusan ka qaadan, ha noqoto ka soo qaybgalkiina, ha noqoto ciyaartooydii tartanka gashay, ha noqoto maamulka iyo abaabulkaba iyo bahda isboortiga dhammaan waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. caasimaddan waxaan rabnaa in bulshada iyo caalamkaba arkaan horumarka iyo nabadda ka jira sida dhalinyarada isdhexgalka bulshada iyo horumarka isboortiga ee mar walba diyaarka ugu yihiin. taasna waa mid ku timid wadajir, midnimo iyo inaan u wada jeesanay horumarka dalkeena iyo caasimaddeena. aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan dhalinyaradii ka qayb qaadatayna waxaan leenahay guuleysta. waxaa muuqata halkan inay ka soo bixi doonaan ciyaartooydii u matali lahayd heer gobol, heer qaran, isla markaana aan rajaynayna inay la tartami doonaan ciyaartooyda adduunka. aad iyo aad u mahadsantihiin. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.